Assalaamu calaykum. Baaru waa maamir reer Hindi ah misana ah qofka keliya ee guriga u soo adeegta markay suuqa wax ugu baahato. Maadaama aysan dhalin gabar qaangaara ama uusan joogin qof caawiya oo suuqa wax ugu soo adeega, ayada ayaa ku qasban markas inay suuqa aado. Maalin maalmaha ka mid ah, Baaru waxay soo aaday suuqa si ay ugu soo adeegato waxyaabaha guriga looga baahan yahay sida khudaarta. Hadba waxay istaagaysay goobaha kala duwan ee suuqa si ay u hesho adeeg dhammaystiran. Maadaama ay tahay qof uur leh, waqti badan ayay ku qaadataa inay suuqa ka soo dhammaato. Baaru waxay guriga uga soo tagtay wiil ay dhashay oo lagu magacaabo Amar oo 8 jir ah, iyo sidoo kale wiil 6 bilood jira oo ay walaasheeda dhashay. Sida caadiga wax fiican ma ahan inaad wiil 8 jir ah ugu soo tagto wiil kale oo ka yar, balse Baaru markaas way ugu tagi jirtay wax dhibcana ma aysan dhici jirin. Baaru markii ay suuqa ka soo laabatay, waxay aragtay wiilkeeda Amar oo ku ciyaaraya qaybta hore ee guriga. Waxay weydiisay Amar, aaway walaalkaagii ka yaraa? Amar oo iska ciyaaraya ma uusan u jawaabin hadalka hooyadiisa ay weydiinayso. Mar kale ayay ugu celisay, Amar, adiga ayaan kula hadlayaa, aaway walaalkaagii ka yaraa? Balse mar labaad ma uusan u jawaabin. Intaas kadib Baaru waxay isku dayday inay cunuga eeda raadiso. Waxay gudaha u gashay guriga, balse waa ay soo weysay. Ayadoo xanaaqsan ayay waxay ku soo laabatay Amar. Mar kale ayay weydiisay, aaway walaalkaagii ka yaraa? Intaas kadib Amar intuu hooyadiisa gacanta ka qabtay ayuu yidhi, hooyo waan dilay. Hooyadii way yaabtay oo way qaracantay. War ciyaartayga waxayna u qaadatay cunugan yar inuu iska kaftamayo ama iska ciyaarayo, ama ayada rabo inuu ka naxiyo, ama inuu iska ciyaarayo ama iska kaftamayo ay u qaadatay. Marka ay ugu celisay, ciyaartayga daa, aaway walaalkaaga? Intaas kadib Amar waxa uu gacanta ka qabtay hooyadiisa, waxa uu geeyey beer yar oo ku taalay guriga dambe dhabarkiisa. Waxa uu farta ugu fiiqay meel yar mugdi ah, god yarna uu ka qodan yahay. Hooyadii way carartay, ama Baaru way carartay, waxay ku carartay godkii yaraa. Waxay bilowday inay gacmeeda ku qodo maadaama uu yahay god aad u jilicsan oo aan saas u fogeyn. Cabbaar markay qoday kadib, waxaa gacanteeda soo taabtay maqaar yaroo jilicsan oo aadna u qabooban. Dadka waxa dila waxaa loo kala qaybiyaa 2 nooc. Dad loo yaqaano serial killers waa dad caadaystay inay dadka dilaan. Waa dadka dilay dad tiradooda ay ka badan tahay 2 qof, 3 qof, 4 qof ama 5 qof. Dadkaasi markay booliisku soo qabtaan ama la wareysanayo oo la weydiiyo maxaa dadka u dishay, qaabka u dishay, su'aasha koowaad ay dadka weydiiyaan waxaa ka mid ah xabad sigaar iyo shid kadib aan kuu sheegay, ama koob kafee iyo shub iyo waxyaabo noocaas ah. Dadna waa dad ka dhacday dilka hal mar ama geysta dil hal mar. Tusaale, ama wax laga xaday, ama tuu gurigooda soo galay, ama qof xanaaqay, halkaas mar dilka geysta. Haddaba dilka aan ka sheekaynayno waxa uu soo galaya qaybta koowaad oo serial killers. Waxaa ka daran dilaagan aan ka sheekaynayno da'diisa waa 8 jir. Keliya waxa uu jiraa 8 sano. Waa 8 jir ku qanacsan inuu dadka dilo ama dadka dhameeyo, aan caadina ay la tahay inuu wax dilo. Mararka qaarna aad moodidba inuu ku raaxaysto. Sheekada aan ka sheekaynayno ama keeska maanta aan ka sheekaynayno waxa uu ku saabsan yahay dilaaga ugu da'da yar adduunka. Waa wiil lagu magacaabo Amarjit Sada oo 8 jir ah. Markaanu leenahay dilaaga ugu da'da yar, ulama jeedno waa ninkii ugu da'da yaraa ee wax dilay. Waxaa jira caruur badan oo wax dishay oo da'diisa ka yar, laakiin serial killerka ama dadka dilka caadaystay waa kii ugu da'da yaraa ee taariikhda. Wiilkan yar inta uu yaraa dabeecadiisu way ka dubneyd caruurta kale. Markay caruurta meel isugu yimaadaan ama ay rabaan inay ciyaaraan, Amarjit waxa uu ahaa nin ka duwan caruurtaas qaabkay u ciyaarayaan. Tusaale ahaan, haddii aad isku daydo inaad gacan u qaado ama si kaftan ah garbihiisa dharbaaxsho ugu dhufato, ama aad isku daydo inaad kala tuurto, wuxuu ka falcelin jiray falcelin aad u weyn. Haddaad dharbaaxsho ku dhufato, feer ayuu afka kaa gelinayaa. Asiga caadi ay la tahay markuu intaa sameynayaan, wuu ku dhool cadeynaa, wuu qoslayaa, wuxuu u qabaa inuu kula ciyaarayo, laakiin ma oga dadka ayuu dhibaataynaya. Da'yaraantiisi saas ayuu ahaa. Haddaba maalin maalmaha ka mid ah, Amar gurigooda waxaa soo booqatay habaryartiisa hooyadiisa la dhalatay oo lagu magacaabo Mina. Mina markay guriga timid, waxay Baaru ka codsatay in wiilkeedoo 6 bilooda jira uu gurigan u joogo. Sababta ay u codsanaysa ayaa ah, Baaru 6 bilood ee ugu dambeysay waa intay cunugan dhashay oo dhaxdan wax shaqa ma aysan qabanin. Shaqana aad ayay u raadinaysay maadaama ay la daala dhacaysay nolosha. Haddaba muddo 6 bilood kadib waxay shaqo ka heshay magaalada, shaqadaas oo ah guri nadiifin. Maadaama ay shaqadu tahay shaqo culus, ay maanta dhan shaqaynayso, way adag tahay inay cunugeeda ka warhayso. Dhanka kale, sidaan hore usoo sheegnay ama muuqaalka bilowgiisa aan kusoo sheegnay, Baaru Amar hooyadiisa waa xaamilo. Waxay istiri maadaama walaasha ay xaamilo tahay, inta badanna guriga ay ayada joogto, cunugan ayada ayaa kaaga fiican oo xanaaneyn karta.
markii hore baaruwa ay ka diiday waxay u sheegtay inay eegadan dari hayso lacag la-aan hayso xitaa ninkeeda uu maalin dhaaf u shaqeeyo aysan awoodin cunugan inay kofargareeyaan hungurigiisa ama caano intii u baahan yahay intaas kadib miina waxay u sheegtay baaru inay lacag usoo dirayso bil walba maadaama shaqo aan tagayo lacag ayaan kuu soo dirayaa sidaas darteeda wiilkaygii ihay baaru ayadana lacagtii ay u baahneed waa ay aqbashay haye waan ku haynayaa ayay tiri sidii ayayna wiilkii ku aqbashay maalintaas maalintii ku xigtay miina waxay keentay cunugeedii kadibna waxay aaday shaqadeedii waxay aaday magaalada maalmihii ugu horreysay baaru wiilka si fiican ayay u xanaanaynaysay xitaa waxay u gelinaysay dharkii amar ku yaraaday ama uu da ahaan ka koray haddaba maalmaha ka mid ah gurigii waxaa ka dhammaatay qudaartii baaru ninkeeda shaqo ayuu ku maqan yahay ayada keliya ayaa guriga joogta waxay ku qasban tahay inay suuqa aado si ay qudaar u soo iibiso haddaba baaru intaysan bixin ka hor cunugii yaraa waxay u diyaarisay meel ay seexiso waxay duudubtay maryar wayna ku seexisay sidoo kale intaysan bixin ka hor waxay la dardaarantay amar oo ay u sheegtay inuu wiilkan yar indhaha ku hayo isla markii waxay ka baxday iridda isla markii iridda ka baxday ama iridda saasay u xirtay amar wuxuu si toosa u soo aaday cunugii yaraa markii uu soo dal istaagay waa uu ku soo foorarsaday sidii qof ciyaarsiinaya oo kale camanka ayuu ka jiijiiday isla markii cunugii wuxuu bilaabay inuu ooyo markuu sidaasi u ooyay amar wuxuu ku dhuftay dharbaaxo aad u xoogan cunugii xanuun ayuu la ooyey intaas umaguma uusan ekayn intuu kor u qaaday ayuu wuxuu ku dhuftay dhulka wuu qaaday wuu ku dhuftay wuu qaaday wuu ku dhiftay kadibna ciijo ayuu la dhacay intii aysan baaru suuqa gaarin kii yaraa nafta ayaa ka baxday amar waxa uu ku fikiray inay hooyadiisa imaatinkeeda waqti badan uu qaadanayo waxa uu ku fikiray in wax kale samayn karo kadib cunugii ayuu soo qaaday waxa uu geeyey dhabarka dambe beer yar oo ku taallay waxa uu dhigtay meel qalalan kadibna waxa uu madax ugu dhuftay bulkeeti wejiga ayuu ka burburiyey intaas kadib god yar ayuu u qoday godkii ayuu wuxuu ku riday meedka wixii yaroo cunuga ka faniinay ama markuu bulkeetii ku dhufanaya ka faniinayna intuu ku soo xaaqay ayuu godku ku daray kadib waxa uu dasha ka saaray caws yar waa uuna aasay intaas kadib guriga ayuu isaga soo laabtay wuxuu iska bilaabay inuu gawaaridiisii waxyaabaha guriga uu ku ciyaaro waxa uu dhaqmayaa sidii qof aan waxba hadlayn oo kale waa qof iska qanacsan intaas waxaa sii dheer cunuga markuu ciqaabayo ama uu ciijada ku dilay ama uu dhagax ku dhufanayo amar wuxuu ahaa nin dhoola caddaynaya ama waxa uu samaynayo ku dareemayo farxad ama raaxo haddii aad isweydiinaysid waxaas dhan yaa arkay oo sheegay asiga ayaa qirtay markay booliisku qabteen ugu dambeyn baaru waxay ka soo laabatay suuqa markay soo laabatay sida muuqaalka bilowgiisa aan ku soo sheegnayba intuu gacanta ka qabtay ayuu meeshii dulgeeyey baaru markay aragtay cunugii yaraa miidkiisa waa ay wereertay madax ayaa weynaaday waxa ay samaysay ayaa garan weysay waxay istiri kani waa mid yar waxa uu samaynaya asaga xataa ma oga booliiska haddaa wacdo waa wiilkaagii waa wiilka keliya aad dhashay baxar ayuu kaa gelayaa maxaad samaynaysaa taleefon ay qof kula xiriirta ma haysato yacni waa daqiiqado yar oo baaru dunida dhan ay cariiri u noqotay xitaa ma taqaano cunuga hooyadiis meel ay kala xiriirto ama ma haysato wax taleefona qof ay kala xiriirto ugu dambeyn waxay go-aan ku gaartay inay iska sugto intuu ay kasoo laabanayo odaygeeda ama amar aabihiisa amar aabihiisa markuu yimaaday waa uu yaabay madax ayuu qabsaday waxa uu cunugan yari sameeyey intuu ishaan weeyey ayuu intuu suunka la baxay amar si aada u garaacay ilaa uu ka dhiigay ugu dambeyn labadii waalid way wada hadleen waxay is yidhaahdeen haddii aad wiilkan booliis ku dhiibtaan waa wiilka keliya aad haysataan yacni maxaad samaysaan miidkiina guriga ayuu yaalaa ugu dambeyn waxay ku tashadeen inay sugaan wiilka hooyadiisa bil kadib waxaa soo laabatay miina oo ah wiilkii 6 bilood ee jiray ee la dilay hooyadiisa markay timaaday waxay aragtay dad u eg inay ayaga sugaayeen ama irid horteeda fadhiya isla markay soo gashay waxay weydiisay maxaa idinku dhacay maxaad la khushuucsantihiin farxad idinkama muuqato waxaad u egtihiin qof aniga isugaayay maxaa jira maxaa soo kordhay amar aabihiisa intuu cararay ayuu miinaha jilbaha qabsaday wuxuu u sheegay intay maqaneed inuu shil dhacay waxaa dhacay shilkeygii 8 jirka ay wiilkaagii ayagoo ciyaaraya wiilkayga ayaana sidaasi ku dhintay anagana waan aasnay waayo waxaan ka baqnay inay dariskana ogaadaan ee fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaadan booliis u sheegin anagana iska kii cafisid miina waxay aragtay amar oo meeshaas taagan markay intaas calaacala waalidiintiisii ay samaynayaan amar waa mid xagga taagan iska qoslaya una og nin daawanaya filin sheeka ama qosola miina way iska cafisay sababtoo ah waa habaryartiisa waa wiilkeeda amar sidoo kale baaruun waa walaasheeda ugu dambeyn way iska cafisay dan sheekadii keyska sidii ayaa lagu xiray booliis looma sheegin deris looma sheegin keyskii koowaad sidaas ayaa lagu qariyey muddo 6 bilood ah kadib amar waalidiintiisa waxay u muuqdeen dad iska iloobay waxa uu wiilkooda sameeyey ama ka soo qaadayba wixii dhacay wax shila yacni ma aysan isdhihin wiilkani maxaa ku dhacay ma psychological u xanuunsan yahay ma sabuudu idinkaga baahan yahay ma maskaxiyan u xanuunsan yahay yacni su'aalo isma aysan weydiinin waxay ka soo qaadeen wiil yar
oo hal mar dil geystay si kamaana u sameeyey waa ninkii bulkeetiga wax ku dilay wax ciijiyey yacni waxay ka soo qaadeen wax shil ah wayna iska ilaaweenba yacni xitaa ma xasuusana waxa uu wiilkoodii sameeyey 6 bilood kadib guriga waxaa ku soo biiray cunug kale sidaan hore usoo sheegnay baaru waxay lahayd uur 6 bilood kadib waa ay dhashay waxay dhashay gabar markay gabartu u dhalatay waxay u maleeyeen inay noqdeen famil dhammaystiran farxad badan ayaa guriga kusoo korortay amarna 8 bilood ayaa kasoo wareegatay ama 6 bilood ayaa kasoo wareegatay dilkii u geystay kankii ku horreeyey amar waxaa loola hadlay sidii qof weyn waxaa la yidhi gabar adigu ku dhalataa guriga kusoo biirtay gabadhan waa walaashaada yacni waxaa waaye ka warhaay yacni si caadi ah ayay ula hadleen amar wuxuu iska leeyahay isiga haye oo iska qoslaya waxaa jirta mararka qaar oo familka guriga ay ka kala maqan yihiin ama iyadoo guriga la jooga la kala mashquulo for example hadda waxaa jirta I don't know guriyihiina tusaale kale waxaa jira guriga aniga hadda aan leeyahay ama gurigayga xilliga qadada oo kale waa la kala seexdaa guriga iyagoo la jooga ayaa dareemaysa inuusan qofba joogin guri walbana ma saacado saas ayuu leeyahay guriga iyadoo la wada joogo ayuu qof walba qolkiisa intuu galo ama waxaa jirta xilli la wada seexdo familka qaar markii la quracdo oo kale caruurta dugsiga aadaan waalidiintu waa kala seexdaan kii shaqo aad waa aadaa Soomaali markii la joogo laakiin dunidan kale xilliga qadada oo kale guriga waa lagu kala mashquulaa ama waa lagu kala tagaa hadda maalmaha ka mid ah maalinta qadada kadib baaru iyo ninkeeda waxay galeen qolkooda amarna wuxuu aaday qolkiisa waxaa iridda hore ee guriga ama qolkan baaru horteeda la dhigay gabadhii yareed oo la seexiyey baaru iyo ninkeeda waa iska mashquuleen oo qolkooda ayay ku jiraan ninkii amar ahaa hal mar ayay ku soo dhacday inuu gabadhaas yar u tago markii uu soo dul istaagay gabadhii yareed waxay u malaysay inuu walaalkeeda ciyaarsiin doono aad bay u farxday way ku qosashay markaasuu intuu ciijo la dhacay ayuu kow ka siiyey gabadhii yareed ma awoodo inay dagaalanto ama ay iska celiso wax kali ay samayn kartay ayaa ah inay gacmaha lagu dhaqaajiso daqiiqado kadib waa ay dhimatay gabadhii yareed amar qolkiisa ayuu isaga laabtay sida qof caadi ah oo aan waxba dhibaa geysan oo kale yacni qolkiisa ayuu isaga laabtay wuu iska dhoola cadaynayaa waxaa la sheegaa dadka keyska qoray ama researchers waxay sheegaan markuu gabadha ciidada ku qabanayay inuu u ekaa qof faraxsan ama daawanaya film comedy oo kale yacni waa qof ku qanacsan waxa uu samaynayo markaas uu dil geysanayo amar haddaba ugu waa 8 jir cunuga saas wax yeelaya saacado kadib waxaa soo baxday baaru waxay soo aaday dhankii gabadhii yareed waxay u malaysay markii hore gabadheeda inay hurdoonayso ama ay hurdaysaba waxay istiri soo qaad markay sidaa u taabatay gabadha jirkeeda dhan waa wada qabow way naxday kadib saasay u fiirisay markay jeegaraysay waxay ogaatay in cunugtii yar ay dhimatay isla markii hooyadii meel kale ma aysan aadin waxay si toosa u aaday amar qolkiisa amar wuu iska ciyaaraya uu iska qanacsan yahay yacni qof waxa leeb uma ekaba markaasay tiri waryaa walaashaa maxaa ku samaysay see yeeshay walaashaada markaasuu ugu jawaabay waan dilay hooyo simple waan dilay amar aabihiis ayaa bannaanka soo aaday oo baaru oohinteeda ku soo baxay markii uu arrinta arkay amar ayuu wuxuu u garaacay si zaa'id ah amar wuu ooyey markaan oohinta iyo dagaalka iyo buuqa waxaa ku soo baxay deriskii gurigii waa lasoo buux dhaafiyey markii gurigii lasoo wada galay yacni oo gurigii la yimaaday waxaa la arkay cunugtii yaroo dhimatay oo inta taalo amar oo aabihiis halka ku garaacaya hooyadii oo dhankaas ku ooynaysa markaasaa la yidhi maxaa jira waxay ogaadeen markay aabba hadalkiisa ka dareemeen inuu amar cunugta dilay waxay isku dayeen inay amar ka celiyaan cunugan waa cunug yar dilin saasa yeelin booliisku dhiib waxyaabo noocaasa kadib amar aabihiis wuxuu yidhi kan anaa kawka siinaya booliis xataa uu dhiibi maayo adigu dambeyn waa laga celceliyey wuu iska daayay deriskii waxay iska kala aadeen xaafadahooda sida caadiga dalka hindiya waa dal yacni waxaa waaye dadku ku nool inta badan qofba qofka kale afaarihiisa ma galo yacni afaarihiis inta uu booliiska ka gaarsiinayo qof deriska intuu baxo booliisku wax u sheegi maayo inta badan privacy waa la ilaaliyaa maadaama arrintan arrin family ay tahay booliis waxba lama aysan la wadaagin laakiin waxay sugayeen amar waalidiintooda inay booliiska u tegi doonaan arrintan ay u sheegi doonaan 2 maalin ayaa ka soo wareegatay amar waalidiintiisa weli booliiskii ma aadayaan halkay booliiska ka aadi lahaayeen 2 maalin kadib waxay bilaabeen inay tagaan guryaha deriska guri walba fiiri waxaa maanta aragtay ama 2 maalin ka hor aad aragtay gurigeena aad timaaday biliis data u sheegin waalidka u sheegin aniga 2 cunug keliyaan dhalay cunugii hore waa gabadhii hore waa iga dhimatay kan hadduu xabsi iga galo cunug la'aan ayaa noqonayaa biliis ha u sheegin booliiska u sheegin ciqaab in nagu filan anaga haysano biliis ha nagu dirina dadka waxyaabo noocaasa haddii aad tahay qofna caawinayo biliis aamusnaantaada nagu caabi oo booliiska hala wadaagin arrinta gurigan ka dhacday then familkii sidii ayay ku qariyeen waa keyskii labaad I don't know siday u fikirayaan
waalidiinta amar adigu haddii wiil aad dhashay allah kuuma qadaree saas uu sameeyo ama ay saas dhacdo maxaa samaynaad qaybta commentii kusoo qor. haddaba si kastoo waalidiinta ay u qariyaan deriska amar xaaladiisa markaan way la socdaan waxa uu yahayna way ka warhayaan mar walbana attention ayay carruurtooda u leeyihiin. haddaba muddo kadib maamo kale oo xaafadda degan oo magaceeda aan la sheegin ama keeska lagu sheegin laakiin aan ugu wacayn intuu muuqaalka socdo Mrs. C ayaa waxay dhashay gabar lagu magacaabo Kashbu. Kashbu waa 6 sano jir xoogaana cayilan, hooyadeedana ayada keliga ay haysataa. maalin ayaa waxay damcday inay suuqa aado. waxay dhibsatay inay Kashbu hor u qaado maadaama ay tahay gabar xoogaa cayilan aysan xambaari karin ilaa suuqa qof ay ugu tagto ma lahayn. then waxay samaysay waxaa jiro wax la yiraahdo daycare dadka qurbaha jooga way yaqaanaan u malaynaa ama wax la yiraahdo home care. xaafadda waxaa ka jira guri ama waxaa jira meel bannaan ama oo macahad camal ah oo carruurta ku dhaafan kartid markaad aadaysid suuqa markaad soo laabanaysid carruurtaada meeshaad aad ka soo maraysid. dalka India waa dad iska buura sida dadka reer galbeedka ama laakiin waa meel noocaas u eg waa home care meel u eg weeyaan ama carruurta lagu ilaaliyo daycare la yiraahdaa. gabadhii ay meesha dhigtay kadibna waxay aaday suuqay aaday alaabteeda ay soo adeegatay. markay suuq ka soo adeegto ay soo laabatay waxay isku dayday inay soo marto Kashbu kadibna ay qaado gurigan ay geyso. laakiin markay soo laabatay guess what gabadhii ma joogto. dhan kasta laga fiiriyay cunugtii yareed ma lahan. aan kugu dare Kashbu markay hooyadeeda baxaysay way hurdaysay. ma lahan meeshan daycare-ka qof weyn oo laga baqaayo oo wejigiisu egnina carruurta afduubanaya ma uusan soo gelin, carruur kaliya ayay soo gelaysay. almuhim gabadhii waa la waayay, booliis deriska qof walba wuxuu isku dayay inuu gabadhii raadiyo. haddii aad ogtahayna xaafad dadkeeda ay yaqaanaan hadduu warka dhaco warka si waxaa waay si fast ayuu wuxuu ku noqonaya uu ku faafaya yacni uu ku travel garaynaya. almuhim warkii wuxuu gaaray xaafadda oo dhan laakiin sidaan horey u sheegnay Mrs. C ma taqaano qofka uu yahay amar. haddaba sheekadii sida guriba guri ay soo gudbaysay waxay tagtay xaafaddii amar uu ku noolaa. then dadkii xaafadda isla markii waxaa maskaxdooda ku soo dhacay in keeskan uu geystay amar, yacni ninka dilkan geystay ama gabadhan la weysan yahay ninka watay ama watayba inuu yahay amar ayay iska dhaaniciyeen ama ay isu sheegeen. haddaba mid ka mid ah eedooyinka amar ayaa sheekadii soo gaartay. ayada iyo Mrs. C ama Kashbu hooyadeedana way is yaqaanaan. isla markii waxay u tagtay Kashbu hooyadeeda Mr. C waxay u sheegtay waxaa jira wiil aniga aan eedo u ahay oo amar la yiraahdo carruurtana saas yeel waxaan u malaynayaa gabadhaada inuu asaga watay ama uu asaga meel ku qariyay. deriskii iyo Kashbu waxay si toosa u soo aadeen amar gurigooda. waxaa laga codsaday waalidiinta amarna amar banaanka u soo bixiyaan su'aalana la weydiiyo. markii hore amar hooyadiisii aabiis waxay isku dayeen inay wiilkooda difaacaan. wiilkayga waa wiil yar waxaas kama suurtagalaan idinka carruur ayaad dhasheen carruurtiin waxaas ma samayn karaan. ugu dambeyn waxay dhahaan caddeen la imaada kadib waa wareysanaysaan. qoyskii ama deriskii saas kumaysan harin bareeshar xooggan ayaa la saaray ilaa amar banaanka laga keeno. amar markii banaanka la keenay gabadhii yareed wax laga weydiiyey asoo dhoola caddaynaya qoslaya wuxuu ku jawaabay anaa dilay gabadhaas yar. deriskii dhan waa yaabeen, waalidiintii amar way yaabeen. markaan looguma sugin inay ay wiilkooda garaacaan. deriska ayaa gacanta qabtay waxaa la yidhi cunugtii yar meeshaad geysayna geey. wuu soo waday wuxuu geeyey meel yar beer ah oo uu gad ka qoday uuna ku riday gabadhiina uu ku dilay. oo sidii uu ku sameeyey 6 jirkii habaryartiisay dhashay si lamid ah ayuu cunugii ku sameeyey. ugu dambeyn May 30keedii 2007 ayaa la xiray amar. dowladda ayaana xirtay kadibna wax kasta asaga ayaa afkiisa ka qirtay iyo sida uu u dilay. yacni keyskan markaan diyaarinayay wuxuu ahaa wax adag, yacni markaan emotionkayga xataa waa isbedelay xilliga awalan aqrinayay maadaama ay tahay sheeko aad iyo aad u qarac badan, yacni aad u dhib badan in la soo gudbiyo ama dadka loo sheego. intaas kadib waxaan rabaa inaan u sheego waalidiinta carruurta dhalay ama wiilasha haysta ama guriga ugu taga aan waqti siinin waxa maskaxdiisa ka guuxay aanan ogeyn dhibkan ayay keeni karaan carruurta haddii aanan maskaxiyan laga warhaynin. ugu dambeyn dadka cilmi baarayaasha waxay ku tilmaameen ama dadka psychologiga waxay sheegeen inuu amar maskaxda dhaawac ka qabay oo yacni uu xanuunsanaa. intaas waxaa ka daran amar marka uu qirtay dilalkii uu geystay markii la weydiiyo la dhahay maxaad u qiratay maxaad u qarsan weysay waxa uu yiri waalidiinteedu waxay ii sheegeen in been la sheegay inay tahay wax xun. imagine wuxuu leeyahay markii la weydiiyay dadka maxaa u dishay maxaan u dili waay wax caadi waay
يعني inuu been sheegan wax weynay la tahay inuu dadka dilan wax caadi ay la tahay muhiimaddu waxaa waa inaad caruurtaada ka warhaysid xaaladda ay ku sugan yihiin aad la socotid wax walba oo ay samaynayaan aad la socotid haddii aad xasuusataan amar markuu caruurta la ciyaarayo muuqaalka qaybtiisa hore sidaan kusoo sheegnay inuu zaa'id wax u garaa ciyaaray la ahayd asaga hooyadiis intaasi dhan way ka warhaysay laakiin si serious ah maysan u qaadanin waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay kanaalka fadlan ugu soo bir hana ilaawin muuqaalkan inaad u sheergaraysid asxaabtaada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tan iyo muuqaalka dambe maca salaamo see you guys